koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tarinaya hawsha malaweeyeedhaylalaamay hadaadidayoolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeennani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goonee aqoonsigan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay war ma haysaane waxaan maqlay xalay war weyn oo cajiiba warkaas madaxtooyada muu ka yimid aweynaada maxamed kuntaan malaa'ika arro ma abi axmed ays xasilay hayahe ayaantan corona la sheegayo ma madaxdii alla karantiilay war haddii madaxda la karantiilo dalka yaa xukumaya wareedhaa waa nugu degdegteene jabhadda la dagaalanta dawladda Colombia ma al-shabaab ay leeshiin ma sadaacishay naqdeen ma ICG baa laga wacay yaa aroma corona ku dhacayne war waxba leedin ma sheegi karee jabhadda waxay sheegtay inta koroonuhu socdo inay dagaalka joojinayaan dawladdiina arrintaa way kula heshiiyeen ciidankii jabhadda iyo kii dawladduna waa wada joogaa hadda marka waxaan la yaabanahay shabaabna way iska sii wadaa dagaalka iyo qaraxyadii cid kastoo adduunka joogta daacish iyo shabaab ma ka naxariis badanta war jabhadda shacabkooda ay u naxayaan waa naga aqli badan yihiin naga aamus war maya jabhaddaasi way naga eelka qabowyiin war ma haysaana waxaa la yidhi ceebta liidan la iskuguma imaan karo alla ilaahay kuwaas nala ka rookeeyo qayladooranba ka hoyo weyne warnimayahu dawladda Kenya ciidamadii la dagaalanka argagixisada ayay ku amreen la dagaalanka coronavirus kadibna wixii dad dariiqa marayay jeegaday uga istaageen horta corona inuu argagixisay yahay adigu hadda anaad sheegaysaa anigu mug horaan arkay war waxaa la yidhi adduunka meelaha kiisaska corona laga helay kuwa ugu yaray Soomaaliya ka mid tahay war Soomaaliya kadeedkay hore u qabtay baa badnaayo ilaahay corona ugu dari maayo aryaadaha dad qalalaasa iyo qaylo lagu dilay corona xaw ka qaadaya horta muga waxaan dhihi lahay oo dad qaarax qoorta loo geelshaad qanda kaalula qaylihe dad qaarax qoorta loo geelshaad qanda kaalula qaylihe maahino war Cabdillah anu qanda lama qayline wax jiraan ku sheegayaa ay dhageyso Soomaaliya qalabkii corona lagu baaraay ma yaalo iyaduna way isdhex yaacaysaa liiro karantiil waa lagu kari waayay marka qofkii asoo qufacayo hindhisayo ka hor imaanaya wuxuuna ku leeyahay war corona iyo waxay sheegayaan been weeye gaaladuna ku dhacay muslimka kuma badhacba aryaadaha hindhisa alxamdulillah yay leedahay ansa qofa aan hadda socdo ma aqaan war ma aysiin nin gaari biyaal wada oo sida uu sheegay sanboor qabay ayaa 3 jeer hindhisay show ma yiri aroosaas ma asiri war idinka corona qabe dadkii caasiga saarnaa dhan hal mar ay ka daateen warnimayo waayaan baraha bulshada qofkii aragtay aan lagu qancin dhiibta soo farxalo ayaa lagu jawaabaa warnimayo corona inuu cudur dilaayo yahay oo adduunyada ka dilaacay kuna fiday waa cadda laakiin haddana kooro tiro badan oo siyaasi ah lagu xireeyay waa tuma koorta yeeraysa aryaadaha dad meel uu caddaha meel ka madoobaa la yiri waxaan anigu dhihi lahay
kaduudshe aad u kibraayey karoone ku tilmaamayaan kaduudshe aad u kibraayey karoone ku tilmaamayaan haye warnimayow guddoomiyihii gobolka hiiraan ee xilka laga qaaday cali carraale wuxuu yidhi waare xilligama qaadi karo hayehe ewelna yaa u dhiibay war markii hore ma londona laga soo magacaabay war horta guddoomiyihii gobolka hiiraan loo magacaabay xilka lagama qaadi karo muxuu u yidhaa macmacaankeedaa badan baan u malaynaya war hiiraan cashuur aan la xisaabin baa ka jirta warwarkaa naga dhex gelinina wuxuu yidhi madaxweynaha wakhtigiisu waa gebagebo nin wakhtigiisu dhow yahayna wax igama qaadi karo ilka kana war guddoomiyaha gobolka hiiraan madaxweynaha hirshabeelluu rabaa la yidhi asagii waaran biyo hoostooda iska arkeen aryaadhaha guddoomiye carraale iyo qaylada laga deeyaha korotaan la haydee ma yidhi war adeer war ma haysaane jumhuuriyaddii somalilan war weyn baa ka soo baxay wan ma ka weynaay warkaas arro warwarna waxba ka garan maysidee wasiirkii arrimaha dabadda ee somalilan wuxuu sheegay ictiraaf raadintii iyadoo meel fiican ay noo marayso oo nalaba aqoonsan rabo oo in yar noo saaran tahayba ayaa koronafayras caqabad weyn uu ku noqday markaa inta koronafayras uu jiro ictiraaf raadintaydii dib baan u dhignay wadhiib halkaa waxaa iiga caddaatay in koronafayras nin waliba ujeeddadiisa uga macaashay marka sida ii muuqata islaanta ari ka lumaana waxay odhan doontaa haddaan arigaygii raadsan lahaana koronafayras baan ka baqaya anugu arrintaa arrin ka xun baan ka baqaya waxaana u malaynayaa wakhtiyada soo socda dawladda soomaaliya in war ka soo bixi doono ayna dhihi doonto muddo aan la cayimin koronafayras awgii doorashadii dib aan u dhigna allaahu akbar arwaxuu ku warramaya daya yaa ka yeelaa mugga warnimayo madaxweynaha yuganda doorasho 2 sano ka dhiman tahay ayuu yidhi waan joojiyey koronafayras awgii marka yaa ka diidaya kuwan hayehe muuse feentana maberkaasoo u baxay uma wallaahi inaan laga yeelin warnimayoonna waxaan dhihi lahaa madaxweyne kuma dooranine kuwii ku soo doortay oo doorashada raggii rabay niyahow adiga kaa doortay ee doorka kaa dhigay xil waa la isku doortaaye maadiinta qaranka oo dhan iyo dowladnimadee dadka inaad walaalayso u heshiisiiso markaad leedahay dumnideennay ahayd wixii lagu doortay ee dowlad goboleedyadii dhisnaasoo halka soomaaliya afar in soo qadaan waraabla midnimada soomaaliya waa muqadas abla waxay kula tahay low waralagu horogoone aqoonsiga dowladda abla habartaani ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowladda waa sal adag oo adna yaana inay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa abla maxay kula tahay marba hadduu galeeyahay ina adeeray adiga guddoonshu dalka iyaga waxaa dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaan warnimayo ninbaa hadda koox xanuunsaday isbitaal tegey markii la baaray kadib baa dhakhtarkii wuxuu ku yidhi cashada iska dhaaf markaasuu wuxuu ku yidhi reerkii cashada waa laga mamnuucaye qadadii wixii ka haray iisoo kululeeyaan iska cunee war haddaan ninkaa qiyaasa xanuunka hayey oo buysitibu ahaayo waa xanuunka baruurtu keento adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbiyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha allayleh markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajanibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana sii badinaan ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan wuu si soconaya meel xunun buuna aadaya warkaa
midaan aniga cabdulla xalay tirina baa ka weyn jidadkaad la xiri maayo tiri waagi lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin warbeelihii ku diriraya nawaaxiga kismaayo dagaalkooda weli waa socdaa la yidhi xalna weli looma helin marka dowladda iyo maamulka jubbaland maxay dadkaas dhammaynaya u fiirsanayaan waryaada qaylo unbaad ku jirtaane ka faraxasha karoonaha war dadka marka ay isu imaanayaan gafuurka ay xirtaane maxaa ay ku dhacay idinka war adeer annagu hawo fireeshaan haysanaa horta xaad la qayla dhaamisaan afkaanya si xamara loogu xiraa ma waanaan xor ahayn war xanuun xor lagama naqdo xanuun iyo karoonaba alliidinma tusee daawade si aanad noola meeraysan sabskribde sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeennani